الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحنا لنك سلام يا ددوينها الصوماليات halkan naga daawanaya maanta waa ay bisha kowdeedii maalin arbacaa bishii afraad kowdeedii 2020 waxa maanta aan doonayaa inaan uga warramo wixii ka soo baxay shirki xalay aan la lahayn dawladaha ku bahoobay Paris Club oo aan iska wareysanaynay deyntii cafinteedii waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa inaan wada hadallo wanaaga ku jira in wax walba halkay joogan loogu tagana wanaaga ku jira marba waxa socda in la idin soo ogeysiyo sida cadal la idin soo ogeysiyana wanaagiya afkaradka ku jira sida daraadeed hadaan ku noqonay arinta deyn cafinta waxaan uga jeedaa waxa weeye waxyaalo badan oo ay deyntiin inaga hor joogtay baa aan doonaynaa inaan meel isla dhigno oo aan isla fahamno deyntii laynagu leeyahay in laynaga dhaafo waa shaqo aan iskugu tagnay gidigeena aan iskugu tagnay ganacsatada dadka Soomaaliyeed ee suuqa jooga dawladda baarlamaanka cid waliba ay qaybtooda ka qaadatay weeye waxa go'aansanay gidigeena daanta dalka Soomaaliyeed yar iyo weyn inaan adduunka ka qayb qaadano waxa ka dhacaya wanaagiisa ka qayb qaadano oo in badan meel gooniya kaga xidhnay inaan ka qayb qaadano oo dadka ka mid noqono oo caruuraheena iskuul tagaan oo beeraheena qodano oo warshadaheena soo celino oo fatahaadaha iska joojino oo wax ku filaano ayaan ku talagalkaas aan ku shaqaynaa la nagu ogyahay wax kale oo ceebo meesha ku jira oo laga dooni karaana ma jirto waxaan idin sheegay dhowr jeer deema laynagu leeyahay deemana waan idin kala qaaday inaan xoog ugu noqdo mar walba ma rabo oo looma baahna qaybta qolooyinkii ugu horeeyay waan idin sheegay saddexda institution ugu waaweyn oo maanta deeqahooda ay na soo gaarayaan dhawaan na soo gaarayaan waxa weeyaan Banka Afrika ee horumarka Banka Adduunka ee hay'adda lacagta adduunka saddexda institution ugu waaweyn waa saddexda weyn saddexdaas inaan deemihoodii meel isla dhignay bishii ina soo dhaaftay bishii labaad 7/20 World Bank deyntiisa inaan meel isla dhignay oo la cafiyay inteedii badnay in la cafiyay African Development Bank bishan imika ina dhaaftay ee 30 labadeedii inaan Ivory Coast tagay Abidjan oo aan la soo saxday isagana meel baan iska dhignay IMF qolada la yiraahdo hay'adda lacagta adduunka bishan 25 waatii gabadhii Kristalina halkan inooga sheegtay ee soo hadashay ee tii deynta Soomaaliya laga afiyay saddexda institution la isku geeyo waxay naga dhaafeen 823 milyan 823 milyan ayay naga dhaafeen hadalka madow baa ku jira madow kuma jiro intaas ay naga dhaafeen 927 way nagu lahaayeen eegata marka adigu calculation-kaaga samayso Soomaaliya waxa la inaga dhaafay lacag xajmigeedu aad u badan yahay qolooyinkaas naga dhaafeen arinta labaad ay tahay in isla garanay waxa weeye dadka lacagaha dadka dawladaha siya waa saddexdooda weey dawladuhu halkaas ay inta badan soo mariyaan wax yar yar oo bilateral la yiraahdo waa jirayaan dawladaha waaweyn particularly laakiin lacagaha intooda badan dalalka hore loogu mariyo investment la geliyo maalgashiga la geliyo saddexda institution baa la soo mariya saddexdoodiba maanta inay noo furan yihiin waxa loo dabaaldego weey saddexdoodiba maanta inay noo furan yihiin in loo dabaaldego weey shalay laba maalmood horteed xanuunkan dhibaatada wata ee inoo yimi dhibaato badan buu Soomaaliya u keenaya dal xoog lama yihin iskama celin karno diyaar ma yihin quuta daruurigeeni baan ayaan la raacftoomayna marka waxaan u qornay World Bank lacagaha ku bixi doona inaan iska caabino wax iyo lacagaha kabka ay loo baahan yahay ee looga baahan yahay in lagu kabo dakhliga hoos u dhacay lagu kabo 580 milyan ayaan weydiisanay World Bank ما يدعي كرتين هذه دين اللي نقوله يعني
ma dhici karteen shalay Islamic Development Bank halkan interview baan kula jirnay teleconference maxaan idin la qabanaa bay lahaayeen waan idin kala qabanaa xanuunadan iyo waxan haddii aynaan deynta aynaan meel isla saarin maynaan ka wada hadleen wanaagu markaa wuxuu ku jiraa inaan wax walba dhinaca wanaagsan ee dhabta ah ka eegno oo aan siyaasaday waxyaabo kale halkan siyaasadii ma taalo inaan la soo gelin ayaan dadka Soomaaliyeed aan ka baraya shalay aan ku noqdo marka shalay labadii marka laga bilaabo ilaa xalay koodii aroornimo koobtan fadhiday meeshan televisionka ayaan fadhiday video conference intaasoo wadan ayaa isugu yimi waa markii ugu horeysay ee qolada Paris Club la yiraahdaa ay sameeyeen teleconference noocan oo kale video conference lagaga hadlayo dawlad sidan oo kale oo intaas oo lacag lagu leeyahay laga daayo wax aad iyo aad loogu farxo runtii weeyaan waxa halkan aan ku hayaa marka wixii xalay ka soo baxay arintaas laba arrimooda mid waxa weeye koodii habeenimo wixii ka soo baxay minuteska waxa la yiraahdo ama soo koobka wixii ka soo baxay oo halkan ku yaala waxa wala wada saxay waxa nin qof wala meesha yimid oo saxay qof wala meesha yimid oo saxay saad warkaysaan marka internetkana waa ku jirtaa waxaan doonayaa inaan idin akhriyo cid ka soo qayb gashay wadanada ka soo qayb galay xalay waxa kamid ah Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, the Russian Federation, Spain, the United States, the United Kingdom and the United States. Intaas oo ku boobay Paris Club ayaa ka soo qayb galay. Waxa kale oo ka soo qayb galay dawlado kale oo danaynaya arrimaha Soomaalida. oo yimid dhageysanayay wax ku qaadanayay qaar lacag inagu leeyihiin qaarana waxba inagu lahayn laakiin iska yimido danaha Soomaaliya danaynaya oo in wax lala qabto iyagoo kolba dadka dhigta wax ugu qabanayo dadka Soomaaliyeed waxa laga dhaafo waxa kamid ah Brazil, Canada, Finland, Korea, South Korea, that is Kuwait, the Saudi Arabia, Sweden, Switzerland and the United Arab Emirates. waxa kale oo ka soo qayb galay of course hay'adda lacagta adduunka, banka adduunka, African Development Bank iyo United Nations oo UNCTAD ay matalaysay. marka yani qof waliba meeshiisu ka soo galay qof waliba meesha ka hadlay waa markii ugu horeysay baa la yiri xalay ee dal lacag lagu leeyahay inagu kii 36 baan nahay 37 baan nahay runtii 35 ay Soomaaliyiin markii ugu horeysay weeye ee horta teleconference conference la qabto wada waxa jideeyay waxaan in haysta jideeyay laakiin maxaa ka important santa waa markii ugu horeysay su'aal la weydiin dawladda aan su'aal la weydiin ee la isla gartay ee intii hadashay marka intii hadashay meesha waxay dhaan Soomaalidu shaqo wanaagsan bay soo qabatay waa support garaynayna videoga waa la dhageysan karaa su'aal kaliya oo ku saabsan Soomaalida waxa loo sameeyay way meesha may soo galin waxa way Soomaaliyeed wax wanaagsan ba qabateen sida ugu wanaagsan ayaana wax idin la qabanayna waxaan doonayaa inaan idin ka warramo lacagaha la inagu leeyahay dhowr jeerna waan idin ka warramay hadda kadib horta waan dhameynaa deyntan in cafidna waan dhameynaa dhaqaalaheena ku jeesanayna hadda kadib halkan hadda kadib waxaan ka wada hadli doonaa dhaqaalaheena iyo beeraheena ka hadli doonaa sidii warshadeena loo soo celin lahaa ka hadli doonaa sidii muuskeena loo dhoofin lahaa ka wada hadli doonaa sidii beeraha loo qodan lahaa sidii bacaadka loo joojin lahaa sidii ceelasha loo dhooba qaadi lahaa ayaan hadda kadib ka hadli doonaa laakiin tana in hor taagnayn birta weyn inagu bishlan ay ahayd tii waa la iska duwa waa la leexiyay waxaan doonayaa idin sheego deymanka la inagu leeyahay waa kala nooc dawladu waliba qaanuunkeeda leedahay si u dhaaftay leedahay waa intaas dawladu waa kala sharci waxa kale oo weheliya institutionskuna waa kala sharci waxa kale oo jira loonka lafteeda deynta aad saxaxatay oo intaas soo deyna mid walba wax specific aad saxaxday marka inta la soo qaaday la duuduubon lama gubayo mid walba sharci ba mid walba lagu dhaafaya haddaan idinka warramo dawladda Denmark waxay nagu leedahay 5 deymood baa jira oo kala nooca kala gooniya dawladda France waa 19 deymood oo kala gooniya oo kala shuruud oo kala duwan ayay leeyihiin dawladda Talyaanigu 18 dawladda Japan 3 bay leeyihiin dawladda Spain 2 dawladda United Kingdom waxay leedahay 4
United States of America waxa koob iyo 30 ayay leedahay sidaasay u kala wada duwan yihiin ruushka 18 marka inta marka isku geyso oo mid walba aad kontaraageedii agreementkeeda saxeexday duuduub meel lama dhigi karo cidii taa u malaynaysaayna ma fahmin runta ilaahay baa jecel cidii inta la duuduuba salayda meel baa lagu tuurayaa deemaad fahmin adeer haddaanad fahmin annagana soo wadi annaga ku fahamsiin ya dalkan deymaha waa laga deynaya waana laga daayay wax kale ha ka dooni adeer wax kale ha ka dooni ilaahay baan kugu dhaariyay marka deyntii marka waxa jira marka waxay global ahaan iyagu isla gartaan markay isku yimaadaan ay yiraahdaan minimum caawa intaasaan dhaafaynaa yiraahdaan ya ayaa meesha ku jirta waxa kale ugu jirta inta soo hadha inaad wadan ugu tagto oo aad dabeetana wadan discussionkeeda la gasho adduunkaas sidaas ah ya adduunkaas sidaas marka xalay waxa la inaga dhaafay billion iyo 400 oo milyan baa inaga dhaafay xalay ya 1 billion 400 million dollars yaa la inaga dhaafay shalay la inagu lahaa maanta la inagu lahay halkan ay ku qorantahay kobtaasi ku qorantahay press release-kiina waa kaas oo isaguna meel walba waa yaala billion iyo 400 oo milyan ayaa la inaga inta soo hadhay wadan baa loogu tagayaa waana wada jidaysan oo la socdo oo la marayo inta soo wada soo mareen waxa inaga gaalino ama inagu wadanada ugu wanaagsan ayaan ku jiraa maxaa se very important fahamtaa deymihii oo dhan halkan la iska dhigay marba mid baa la soo qaadanaya waa la isla arkaya waa la dhaafaya marba mid baa la dhaafay inna waa la dhaafay ma garata laakiin waxa ay muhiimadu tahay waxa weey maanta deeqdii adduunku way noo furan yihiin barnaamijkeena aan wadana national development plan ka waxa ku yaala ayaa la fan gareynaya la finance gareynaya aynu taa isla fahamno horana aanu socono marka halka waxa ku yaala waxa weeye waa press release-kii weeye halkan kale waxa ku yaala waa minutes-kii weeye wixii ka soo baxay intaba xalay la isla gartay billion 400 milyan dhowr jeer baan ku celinayaa la inaga dhaaf inta kale gooni waxa kale aan doonayaa inaan ku daro nasiib wanaag waxa ay xalay in saddex wadan oo aad iyo aad inaga muhiim inoogu ah ay ka soo qayb galeen wadanada Carabta Sacuudiga Imaaraadka iyo Kuwait inay ka soo qayb galaan shirka nasiib wanaag bay hayd way ka soo qayb galeen Paris club kuma jiraan ya oo de iyagu Carabta markaad isku geyso 9 milyan iyo 50 bay nagu leeyeen 950 milyan ya ayay nagu leeyeen markaad laba isku geyso iyaga Carabaha markaad isku geyso ee institutions ay leeyihiin Arab Fund for Economic Social Development Arab Monetary Fund iyo Islamic Development Bank markaad isku geyso gibigood billion year la bay nagu leeyeen billion year la wali wax laga dhaafay iyagu way noo hadheen IFIs ka soo dhameynay Paris kala maxaa la dhameynay nidaamka Carabta u gelinaya dadka la halmaala ya ayaan iyagana u gelinaa iyagana waxaan doonaynaa inay naga dhaafaan sida Paris kala kale minimum inay inta dhaafaan horta inta kalena item loo galo it is not complicated wax dhibaato oo weyn oo la fahmi waayo ma aha hadii qof uu isagu isdhiga maraya mooyaane wax la fahmi kari waayo ma saddex group wax nagu leh qaar waan soo marnay meel baan wax isla dhignay intii hadhayna waan ku daba jirnaa ya qaarna wali meena bilaana Saudi Arabia maxaa important ka dhigay waxa weey Kuwait iyo Saudi Arabia iyo Imaaraadka markaad isku geyso 463 milyan bay nagu leeyihiin saddexda markaad isku geyso institutionskooda xalay waxa iyaguna ballan qaadeen tabta Paris kala inay sameeyaan laakiin deena nu tagna weeyaan la soo hadal waliba iyagu ka sii wanaagsanaadano intaba mar kaliya ay dhaafi karaan waa dawladaha iska leeyahay taw mar kaliya ay dhaafi karaan iyaguna sidaas ayaan ugu soconaa waxa jira saddex kale oo institution Carabtoona wala kuwa idin sheegay midna Kuwait baale midna Sacuudiga midna Imaaraad kaale laakiin kuwa Carabtoona wada leeyahay jir Arab Monetary Fund ka Abu Dhabi ku yaala Arab Fund for Economic and Social Development oo ku yaala meesha dhaqada Kuwait iyo Islamic Bank oo jidda ku yaala inta markaad isku geysay iyaguna waa 484 milyan inagu leeyihiin iyagana in Carabta kala dheel gareeno talaabada bariya saantamiyada ku xigta la qaadayo ayay tahay ya iyaduna tahay iyaguna waa wax meesha noo marka waxa wanaagsan in la xuso in xalay ka soo qayb galeen Sacuudiga iyo Kuwait iyo Imaaraadku saddex weyn ay yiraahdeen aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo sida ay yeesheen waa yeelinaa bay yiraahdeen marka berito hadii la yiraahdo ayaan la gelinaa muxuu discussion la gelinaa marka waxaan ku soo gabagabeynaa waxa weeye deyntii wala inaga dhaafay
inteedii badneed waa inta kalena waa lagu daba jiraa item bay noqonaysaa sidaan idinku sheegay weeyaan deyn walo aan saxanaba qaanuun bay leeyihiin daba socda midna xalayto waxa aad noo daahiyay dadka Soomaaliyeed wax walba inay ogaadaan Soomaa aad waxa noo daahiyay lacagaha ruushku inagu leeyahay lacagaha ruushku inagu leeyahay laba qaybsamaan qayb project caadi ah oo hepic arinta nidaamka galay iyo qayb gooniya oo ayagu damacsanaayeen in gooni ahaan aanu xalilo marka shalay iyo doraadiytii ku horeysay waxaan ku mashquulsanayn habkii aanu xalili lahayn isla garanno inay naga dhaafaan ma naga dhaafin ma inaan isla saxeexno warqad oranaysa ruushka iyo Soomaalidu waxay isla garteen lacagaha noocaasa inay gooni u xalilaan وحليلاديبا waxay noqotay inaan isku diidno figureska meesha ku yaala anagu numberkan haysano iyo ruushku numberku waa istaa kala duwanaaday anaguna number aanan hubin ma saxeexi karo ya oo dambi ma gali karo marka xalay waxay qaadatay waqti dheer waxaana ruushku yahay qayb uu ka yahay Paris clubka oo haday minutes ka saxeexi waayaan lama saxeexi karo waa qaanuun ka dhaxeeyo way ruushkina waxay yiraahdeen ilaa Soomaaliya tan kale aan ku heshiino ma saxeexino taas horta xalay oo dhan lagu jiray discussion keedii wada hadalkeeda waan saxeexnay waan kala saxeexan ku heshiinay inaan heshiis ku nahay inaan nambarada isku diidanahay laakiin aan ogolaanay inaan arinta ka falgalo oo dabeetana ka wada hadalo iyadoo ay nagu dhex jirayaan hay'adda lacagta adduunka iyo Paris Club Secretariat ay nagu la jirayaan taasina waqti dheer bay qaadato wax waliba legalistic weeyaan arrimo waa legal issues way iskama waxa doonta iskama saxi kartay waxa doonta ma tuuri kartay marka waxaan aad ugu faraxsanahay marka xalay waxa meesha ka soo baxay waa taariikhi weyn ya waa taariikhi masiiriya oo aad dalka wuxuu ugu taray weyn maanta waxaan ka mid nahay IFIs kan ka mid nahay AIDAN ka mid nahay African Development Fund kan ka mid nahay maayiga qolada la yiraahdo muxuu ahaa waxaan ka mid nahay inaan insure garaysa business markay imanayaan lacagaha la soo gelinay insurance ka sameeysa ayaan qayb kan ayagoo shalay bay sheegeen inaad aragtay mooyaan media ku aragtay maayiga shalayta waxay soo saareen Soomaaliya inay tahay wadankii 128 soo gala inay tahay IFC ayaan ka mid nahay oo maanta diyaar u ah inay businesska Soomaalida la dhisaan ya mashaariicda in la dhisaan ka qayb galaan ayaan qayb ka nahay marka really wax loo dabaal dawo ayaan maanta joognaa intaasaan ku soo gabagabaynayaa